السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal walaalahayga Soomaaliyeed meel walba oo adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamayaa. waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhagaxan aad arkaysaan waa dhagax ka mid ah dhagxaanta qaaliga ah ee laga helo dalkeenna. dhagxaanta qaaliga ah oo laga helo dalkeenna ayuu ka mid yahay dhagaxan cagaarka ah oo hortiina ka muuqanaya. waa dhagax aad iyo aad u lacag badan lagana helo meelaha buuraha ah iyo meelaha biyuhu ay maraan ayaa laga helaa. marka dhagaxan wuxuu u sahlan yahay dadka reer guuraaga ah. waxaan si khaasa ula hadlayaa maantay dadka reer guuraaga ah, maadaama dhagaxan buuraha iyo meelaha oo biyuhu qaadaan laga helo. meelaha marka aad xoolaha ku dhaqanaysaan oo joogtaan reer guuraaga, waa in si fiican dhulka aad u fiirisaan waxa yaalla, inta midab ay ka kooban yihiin waxa yaalla dhulka, dabadeetana aad soo gurbisaan macdanta dhulka taalla. laakiin taa waxaa ka horraysa inaad horta wax barataan. markii aad wax baratid ayaad wax fahmi kartaa. waa in aad ku soo xirantid kanaal YouTube-kan, subscribe-na aad tiraahdid si halkan aad uga faa'iidid fiidiyowyada aan soo dhigayno oo ku saabsan macdanta ee qaybino ay tahay dhagaxdii oo hortiina ka muuqata sidan oo kale, qaybino ay tahay qalabkii lagu baarayay oo ah saacadihii lagu hubin lahaa dhagaxa magaciisa. dhagaxa magaciisa markaad ogaatid waxaad ogaanaysaa qiimaha uu ka joogo dunida. qiimaha dunida uu ka joogo ayaad ogaanaysaa. marka walaalahayga Soomaaliyeed khaasatan reer guuraaga waxaan leeyahay waxaad ku soo xirantaan kanaal YouTube-kan si aad uga faa'iidaan waxa agtiina yaalla ee ah dhaqaalo dollar agtiina dhooban. dhagaxan aad arkaysaan qofkii ka soo hela wax dhan kiilo 2 kiilo qofkii ka soo hela wuxuu ku helin karaa qiimo gaaraya 1,500,000 oo kun oo dollarka Amerika. waad maqlaysaan baa malayna 2 kiilo qofkii ka soo hela 1,500,000 oo kun oo dollarka Amerikaanka ayuu ku heli karaa. marka dhulkeena waxaa yaalla dhaqaalahaas. waa dalka ugu qanisan caalamka, haddana waxaanu lagu tilmaamaa inaan nahay dadka ugu baahida badan ama ugu faqiirsan caalamka. marka adoo xoolahaaga dhaqanaya haddana ha u dayma la'aan macdantii in aad baratid oo raadisid